kulan wacan wanaagsan idin ahaantiinba meel walbood joogtaan iyo si walba isarag maqalkeena idiin soo gaadhayo soo dhowaada qodobada aad warkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid a dagaaladii qowmiyadaha u dhexeeyey ee ka socday dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Axmarada ayaa isku bedelay mid lagu beegsanayo muslimiinta degan gobolka Wolo. Xalayta waxaa dhacay weeraro waaweyn kuwaasi oo lagu qaaday dadka degan magaalada Gondar ee u badan muslimiinta. Haatan waxaa soo baxayo warar sheegaya in ay halkaasi ku dhinteen 21 qof, in ka badan 500 oo qoysna laga gubay guryahoodii, waxaana sidaasi noo xaqiijiyey goobjoogayaal ku sugan magaalada Gondar. Arrintani dowladda federaalka Itoobiya kama aysan hadlin, wax wara kama aysan soo saarin, walow ay jiraan dad aad u tiro badan oo ayagu ku dhaqan gobolka Wolo oo mudaharaad weyn ku muujiyay halkaasi. Waxaana la sheegayaa haatan in shaqaaqadu ay weli socoto, iyadoo masaajid ku yaalo magaalada Gondarna la sheegayo in gebi ahaanba dab la qabadsiiyey. magaalada Addis Ababana waxaa ka socdo isku soo baxyo waaweyn kuwaasi oo lagu dalbanayo inay dowladdu ay ka hadasho musiibada halkaasi ka socoto. Magaalada Addis Ababa waxaa ka dhacay dibadbaxyo muslimiintu kaga soo horjeedaan dadkii lagu xasuuqay magaalada Gondar iyo deegaanka Axmarada. Kooxda xag jirka ee Fano ayaa weli waxay wadaan khasaaraha iyo sidoo kale baabiinta dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku dhaqan loo geysanayo. Maalmihii ugu dambeysayba waxaanu wadnay inay jiraan warar la isla dhex marayay kuwaasi oo ahaa in ururka Fano iyo maamulka deegaanka Axmarada ay iska kaashanayaan sidii loo xasuuqi lahaa dadka degan gobolka Wolo oo u badan muslimiin, intooda badanna ka soo jeedo deegaanka Oromada. Dhanka kaleetana deegaanka Soomaalida, saraakiisha laamaha ammaanka iyo sidoo kaleeto kuwa liyuuga ee sida gaarka u tababaran waxa ay ku howlan yihiin sidii munaasabadda ciidda ay ugu dhici lahayd mid nabdoon, iyadoo ammaanka dowladdeegaanka Soomaalidana aad loo adkeeyey. Madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida ayaa shalay waxa uu ku gaadhay safar degdega magaalada Goday, halkaasina waxyaabihii ay ka wada hadleen ayagiyo maamulka gobolka Goday ayaan halkan inagula wadaagi doonaa, iyo sidoo kaleeto ammaanka dowladdeegaanka Soomaalida iyadoo weli ay nagu soo food leedahay maalinta ciidda ee aadka loo wada sugay. daawadayaal, qodobadaasi ayaanu ku eegi doonaa warkeena. Haddii ay tahay markaadii kuugu horeysay ee barteena YouTube-ka aad soo booqato channelka subscribe saar, haddii aad horey noola joogtayna sii sheer garee barnaamijka oo gaarsii asxaabtaada kaleeto. Aan ku bilowna daawadayaal, sida warkeena ku maqlayseenba magaalada Gondar waxaa ka socdo xasuuqi ugu xumaa abid oo lagula kacayo muslimiinta degan deegaankaasi. Maalmihii ugu dambeysay ilaa iyo isbuuc waxaa socday dagaal u dhexeeya dadka degan gobolka Wolo oo u badan muslimiin iyo sidoo kaleeto dagaalka ay ku soo qaadeen kooxdan xag jirka ah ee Fano iyo ciidanka liyuuga sida gaarka u tababaran ee liyu booliska Axmarada. Waxaana maalmihii dambe lagu soo warramayay inay dad aad u tiro badan oo gaadhayo ilaa iyo 5,000 oo qoys ay iskaga qayaan halkaasi, iyadoo dagaalkuna uu halkaasi kasii socday. Waxaana la sheegayay in ay iyaguna jiraan ciidamo ka tirsan ururka Ola oo halkaasi soo galay oo difaacaya dadka deegaankaasi, laakiin arrintaasi waxaa beeniyey ururka Owale oo gebi ahaanba gaashaanka u daruuray, iyagoo sheegay inay culays ay wajahayaan haatan aynan awoodin inay ciidamo halkaasi u diraan. Waxaana soo baxaya baaqiyo ay bulshada rayidka ku dhaqan gobolka Wolo ay u dirayaan dowladda federaalka Itoobiya, laakiin arrintaasi dowladdu dhag jalo qomaysa siin. Xalayto mashaqadii ka dhacday magaalada Gondar, war-saxaafadeed ay ka soo bixiyeen golaha arrimaha islaamka ee dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in tirada dhimashada dadkii muslimiinta ahaa ee xalay lagu xasuuqay magaalada Gondar ay kor u dhaaftay 21 ruux, in ka badan intaasina ay haatan dhaawactay. Waxaa sidoo kaleeto golaha arrimaha islaamka ee dalka Itoobiya ay sheegeen in guryo gaadhayo 500 oo guri in ka badan ay xalay gubeen kooxda xag jirka ah ee Fano iyo sidoo kale ciidamada liyuuga ee deegaanka Axmarada. Qoyaankan ka soo baxay golaha islaamka ee dalka Itoobiya ayaa lagu yiri falkan wuxuu ahaa mid ula kac ah oo maalmihii ugu dambeysay dagaalku waa u socday, falkanina wuu iska cad yahay inuu yahay mid ula kac ah
oo lagu xasuuqayo dadka muslimiinta ee lagu gubay masaajidda iyo sidoo kale guryahooda badan. Waxaad halkaa ka arki kartaa in dowladda Ethiopia arrintan ay maalmihii ugu dambeysayba baaqyo kala duwan oo ka soo baxay golaha muslimiinta golaha islaamka ee dalka Ethiopia iyo sidoo kale dadka degan deegaankaasi oo baaqyo kala duwan u dirayay dowladda federaalka Ethiopia aysan dowladdu arrintaasi waxba marmarsiiya haatan aynu oga haynin. Waxaana jirto in Fano ay ka go'an tahay sidii dadkaasi halkaa degan loo barakicin lahaa oo looga rari lahaa deegaankaasina si xooga looga qaadan lahaa. Arrintan deegaanka Axmaarada maalmihii dagaalku u socday wax wara kama aysan soo saarin. Arrintaasina waxaad aragtaa inay tahay mid Fano iyo sidoo kaleeto dowladda deegaanka Axmaarada ay ka midaysan yihiin in dadka halkaasi lagu xasuuqo. Dadkan oo dagaal uu ku qabsaday ilaa iyo muddo gaadhayso 18 bilood dagaalkii TPLF iyo dowladda federaalka u dhexeeyey halkaasi ayuu ka socday. Dadkani waxay ku jireen xaalad aad u adag oo soo kabasho ah. Haatanna waxay gelayaan dagaalkii ay ka soo kabanayeen ee lagu xasuuqay dadkooda ee guryahooda lagu baabiyey sidoo kale hantidooda halkaasi lagu xasuuqay. Axmaarada arrintani waxay u aragtaa inay tahay arrin aargoosasho ah. Ayagoo dadkani waagii TPLF ay soo galeen deegaanka Axmaarada ay si weyn u soo dhoweeyeen ayaa haatan Axmaaradu waxay wadaa aargoosi ay ka aargoosanayso dadkii Axmaarada halkaasi laga yeelayay. Arrintanina waa arrin ula kaca ayaa laleeyahay. Dowladda federaalka Ethiopia arrintan waxaad moodaa inay ka gaabisay ayna ahayd inay mar hore halkaasi ciidamo dheeri ah u dirto walow ciidamo aad u tiro badan oo difaacaya xuduudda deegaanka Axmaarada iyo sidoo kale tan Tigreega ay halkaasi ku sugan yihiin. Arrintanina ay ka qayb qaadan kari lahaayeen balse arrintan dowladdu waa ay ka gaabisay iyadoo dowladdu haatan ay wajihi doonto xaalad aad u adag. Waxaana magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia laga soo sheegayaa inay ka jirto mudaharaadyo aad u waaweyn. Magaalada Addis Ababa waxaa ka dhacay dibadbaxyo muslimiintu kaga soo horjeedaan dadkii lagu xasuuqay magaalada Gondar ee deegaanka Axmaarada. Dadkani mudaharaadayay ayaa boorarka waxa ay ku soo qorteen haddii axmaaranimadu ay diin tahay inaguna muslin ayaanu nahay ayay fariimahooda ku soo qoreen boorarkii ay wateen. Arrintan waxaa laga yaabaa inay isku beddesho arrin diimeed iyadoo arrin qowmiyadeed ay ka taagnayd dalka Ethiopia. Maalmihii ugu dambeeyna dowladda federaalka Ethiopia waxay sheegaysay inuu amniga dalka khalkhal ku jiro waxaana la qabtay dad aad u tiro badan oo muslimiin ahaa oo lagu eedeeyey inay yihiin ururka Al-Shabaab. Laakiin arrintan markii dambe waxaa la ogaaday inay tahay arrin laamaha ammaanka ay ku buunbuuninayaan la rabana in lagu banaysto dhiigga ummadda muslimiinta ku dhaqan gobolka Oromada iyo sidoo kaleeto gobollada kale ee dalka Ethiopia. Dadkan lasoo qabtay intooda badan waxaa laga soo qabtay magaalada Addis Ababa waxaana la sheegay ama laamaha ammaanku ay sheegeen inay qorsheynayeen farar argagixiso. Dhanka kale dowladdeegaanka Soomaalida ayaa wado qabanqaabo aad u weyn oo la rabo in lagu sugo ammaanka dowladdeegaanka Soomaalida iyadoo maalinta Isniinta ah ama maalinta Axadda ay noqon doonto maalinta Ciidul Fadriga. Waxaana saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladdeegaanka Soomaalida dhanka booliska iyo liyu booliskaba waxa ay wadaan kulamo gooni saraakiisha ugu sarsareyso deegaanka Soomaalida oo ay la yeelanayaan maamulada kala duwan ee dowladdeegaanka Soomaalida uu ka kooban yahay iyo sidoo kaleeto guddoomiyayaasha gobollada oo la rabo inay wada shaqayn buuxdo halkaasi laga sameeyo iyadoo ciidii aysan waxba ka harin. Madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida ayaa gaadhay magaalada Goday halkaasi oo kula kulmay maamulka gobolka Goday iyo maamul magaalada Goday waxaana gebi ahaanba ay sheegeen in ay isla afgarteen waxyaabo aad u tiro badan oo ka mid tahay sidii loo taabagelin lahaa maadaama roobabkii haatan ay da'ayaan iyadoo dhanka kalena madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida uu sheegay in ay haatan tahay maadaama xilligii roobka lagu jiro inay dadku ay ka faa'iidaystaan roobabka iyo sidoo kaleeto meelaha waraabka uu gaadhay sida magaalada Goday oo kaleeto waxaa magaalo aad ugu wacan dhanka beerashada waxaana uu ku booriyey dadka deegaankaasi inay ka faa'iidaystaan roobabkan haatan ka curtay dowladdeegaanka Soomaalida. Daawadayaal intaasi ayaan ku soo koobayaa warkii aan inagu hayay dalka Ethiopia intaan warkan warkaxii ku kulmi doono waxay naga tahay sidaas iyo ammaane Allah.